guddoomiyey muddo 30 bilood ayaad joogtay xafiiska aqalka dawladda hoose xamar wax qabadkaaga oo kooban. bismillaah sallallahu alayhi wasallam xamaasantahay agaasimi waa run waxaan joogaa 32 bilood ku dhawaad wax qabadkaygu laakiin wixii markaas aan ku riyoonayay ama aan ku fikirayay ama qorshahan aan qorsheynay inta badan waa ii qabsoomeen waa jiraan waxyaaba qabsoomi waayey oo yacni duruufaha waddanka iyo magaaladan la soo darsay darteed u qabsoomi waayey ama ha ahaato rabshadihii ka dhacay magaalada ama marxaladan kala guurka doorashooyinka waxaas oo muddo dheeraaday ha ahaato ama covid-ka oo runtii laftiisu caqabad noqday amniga oo sidii la rabay aan ahayn intaas oo iskaashaday ayaa waxay sababeen yacni hiigsiyadaydii inay xoogaa gaabtaan oo aan meeshii aan rabay ay gaari waayeen laakiin alxamdulilah aadan ugu kalsoonahay muddadii aan joogay waxaabihii noo qabsoomay. mudane guddoomiye adigoo mahadsan ma rumaysan tahay in lagu dhaliilo? maba jiro qof mas-uul ah ama ka shaqeeya xafiis siyaasadeed oo aan la dhaliilin ma jiro. inaan lagu dhaliilin macnaheeduna waxa waaye waa inaadan waxba qaban. waa gartay dadka ku dhaliila maxaad uga jawaabaysaa maanta? wallaahi dee dadka dhaliilaya qofku markuu dhaliil hebel maxaad uga jawaabaysaa yidhaahdaan jawaab toosa aan ka bixin karaa. marka dhaliiluhu waa kala duwanaan karaan. midu waxay iska noqon kartaa yacni mucaaradada caadiga ah oo mataqaanaa yacni systemkan wuxuu isugu jiraa dadka haya huna waa muxaafid mucaaradna wuu jiraa yacni dadka hadda talada haya ama maamulada haya mucaarad ku ah. marka qofna waa qof mucaarad ahoo si mucaaradnimo uun noo dhaliilahay. marka xaqu uu leeyahay inuu systemka dhaliilo mana aha wax aniga ila bilowday waa wax weligeed jiri jiray haddana jiri doona. midna waxa waaye wuxuu noqon karaa wax qabad la rabay ama isaga qofkaas uu islahaa ma la qabto oo aan qabsoomin laakiin haddana uusan si hoos u ogeyn yacni duruufaha kalifay in la gaari waayo meeshaas ama waxaas la qaban waayo. marka waxaa jiri kara marka jihooyin kale oo ayadana mucaaradadu ay ku timaado waa jiri kartaa laakiin labadaas hadda ugu waaweyn. waa mase guddoomiye maxaa uu maamulka gobolka banaadir ka qabtay ama uga gol leeyahay dhireynta jirdirooyinka magaalada muqdisho? magaalada in la dhireeyo waa mid ka mid ah ahdaaftii aan anagu lahayn iyo qorshayaashii anaga noo yaalay ee xagga horumarinta magaalada. magaalada oo la dhireeyahi waxay ka dhigan tahay dadka yacni magaalada oo helay hawo wanaagsan helay bilic iyo yacni magaalad muuqaal wanaagsan leh oo yacni leh beero oo lagu nasto soo jiidasho leh. marka ujeedadu waa sidaas. waxaan samaynaa yacni dhirayn aan dhiraynayno beeraha magaalada annagoo u sheegayna dadka hal geed oo la beeraa inuu yahay hal qof oo la nooleeyo oo kale ama hal geedoo la gooyo uu yahay hal qof oo la dilay oo nafta laga qaado. marka in magaaladu ay noqoto magaalo geeda leh runtii alxamdulilah yacni magaaladeenanu waa geeda badan tahay laakiin waxaa dhib uu ka jiraa meelaha danta guudahee farakutiriska ahee soo hartay. maxaa yeelay burburkii goobo badan oo jardiinooyin ah ayaa inta la cabiray ayaa la dhisay oo yacni si dhismooyin gaargaar loo leeyahay laga dhistay. marka inta soo hartay
ayaan ku dadaalaynay inaan la haweysan in ayagana lasii dhisto ama deegaan gaar ah laga dhigto. marka waxaan ula jeednay in yani bulshada ku nool magaaladanu ay hesho meel ay harsato ama doogsato. waa maxay fariinta aad u dirayso maanta shacabka usoo dalxiis taga jardiinooyinka shaqada wanaagsan laga qabtay? waa mahadsan tahay. horta jardiinooyinka ama beeraha in la qurxiyo waxaa loola jeedaa in dadku yani goob dan guud ah oo bilic leh oo dheraysan oo iyagu ay leeyihiin inay ku damaashaadaan oo mataqaanaa halkaas ay ku nastaan ayaa loola jeedaa. marka inayan yani dhib u geysan ayaan soo jeedin lahaa oo aan dhirta la jejebin, aan dhirta la kormarin, isla markaas wax walba oo wax u dhimi kara yani dhirtaas laga fogaado. marka intaasaan usoo jeedin lahaa. laakiin waa runtii ku faraxsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay mataqaanaa ku damaashaadaan beerihii aan u diyaarinay oo aan dhiraynay, waana sababtaan u dhisnay oo aan u dhiraynay. waa maxay guddoomiyey waxyaabaha la taaban karo ee maamulka ka qabtay nadaafadda magaalada Muqdisho? waa mahadsan tahay. magaaladan runtii wax badan ayaa laga qabtay oo xagga nadaafadda ah, sida qof walba oo hadda uu dareemi karo. wax hadda intaas kasii horumarsan oo aan la damacsanayn ama aan la damacsanahna way jiraan. magaalada sida aad ka warqabtiin goobo badan oo magaalada gudaheeda ah ayaa qashin buura ah oo la jiray. ma lahayn meel gaar ah oo macnaha qashinka lagu shubo ama la geeyo. meelo magaalada ka mid ah qashinka inta laga qaado isla meel magaalada ka mid ah lagu daadi jiray. marka waxaasoo dhan waa ka saarna meesha. waxaan u sameynay hal goob oo weyn oo mataqaana magaalada ka baxsan oo qashinka lagu ururiyo. waxaan u sameynay shirkado yaryar oo shaqo abuur yani dadka Soomaaliyeed ee danyarta ah loogu sameeyey, kuwaasoo maalin walba ka qaada yani goobaha danta guud iyo goobaha kale gaarka loo leeyahay qashinka geeyana goobta loogu talagalay. marka runtii isbeddel weyn ayaan ka sameynay dhinaca nadaafadda, walow intaas kasii badanna aan rajeynayno inaan qabano insha Allah. dhinaca kale waa maxay baaqaaga ku aadan nadaafadda magaalada Muqdisho si ay uga qayb qaataan shacabka caasimadda? aad u mahadsan tahay. runtii shacabka qaar badan oo kamiduhu gacanaya naga siiyaan. waad aragtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ayagu isxilqaama oo maalin kasta oo jimco ah usoo kalaxa yani xeebta weyn oo liida nadiifiya si voluntary ah ama mutadawacnimo u nadiifiya. sidoo kale waxaa jira dadweyne isxilqaama oo degmooyinka mataqaana ka qabta nadaafad iyo goobaha danta guud. marka way jiraan, waana uga mahad celinaya dadaalkooda wadaniyadda xambaarsan. balse waxaa jira kuwo kale oo aan sidaas u badnayn, aragtidooduna ay fogeyn oo yani meelo aan munaasab ahayn qashinka ku daadiya ama yani ku tuura qashinka. marka kuwaas waxaan dhihi lahaa yani magaaladan waa magaaladiinii, waa caasimadii dalka. waxay mudan tahay in la dhowro nadaafadeeda, waxay mudan tahay inay la tartanto caasimadaha adduunka. ma mudna in meel walba qashin yaallo ama meel walba qashin lagu tuuro. marka waa magaaladeydii, waa magaaladaadii, waa magaaladeennii. marka aan dhammaanteen ka dhowrno inay yani noqoto meel qashin yaallo oo aan ku xajinno ama aan ku xafidno inay noqoto magaalo nadiif ah. mudane guddoomiye, maxaa horumar ah oo laga gaaray adeegyada caafimaadka asaasiga ah sanad kadib markii uu maamulka gobolka Banaadir la soo wareegay adeegyadaas? adeegyada caafimaadka wax badan ayaa nooga qabsoomay. inkastoo muddadii COVID uu jiray
caqabado badan oo xagga caafimaadka ay naga hor yimaadeen haddana runtii doorkeenii ku aadanaa horumarinta caafimaadka kama gaabine waan kusii dadaalnay waxaan la kaashanay bahda caafimaad yacni gobolka banaadir joogta yacni horumarinta caafimaadka waxaa la dhisay goobo badan oo caafimaad oo ay ka mid yihiin yacni goobaha MCA-jada ama xarumaha hooyooyinka iyo dhallaanka marka waxaa kaloo la bixiyaa si joogta loo bixiyaa adeegyo caafimaad waxaa la sameeyaa oo kale baaritaano ayaa la sameeyaa caafimaad waxaa la sameeyaa oo kale dadka dayarta ah iyo barakacyaasha waxaa loo sameeyaa adeeg caafimaad marka oo lacag la-aan ayaa loo sameeyaa dhammaan adeegyada aan bixina waa lacag la-aan haddii ahaan lahayd kuwa MCA-jada laga sameeyo haddii aan lahayd yacni wacyigeliyaasha caafimaadka oo ayaga laftoodu yacni dadka ugu adeega maxaa la yidhaha si lacag la-aana waxaa sidoo kale aan iibinay ambalansooyin aan ugu talagalnay inay bulshada u adeegaan xilligii COVID-ka ayaan iibinay haddana waan rabnaa inaan kuwa kale sii iibino oo qorshaha ayay noogu jirtaa marka ambalansooyinkaas ama baabuurtaas caafimaadka degdega ah loogu talagalay waxay ka howlgalaan meel kasta oo khatar caafimaad ay ku timaado ama ha ahaato gubashada guryaha dabku qabsaday ama ha ahaato meelaha qarax uu ka dhacay ama meelaha kale oo dhibaatooyinka amni ay ka dhalato marka sidoo kale yacni waxaan raacinaa maxaa la yidhaahdaa tiimamkeena caafimaadka marka ay ololaha caafimaadka sameynayaan ayaan raacinaa gaadiidkaas inay yacni la socdaan oo hadday bukaan arkaan ay soo qaadaan ay geeyaan goobaha caafimaadka ka waran guddoomiye guulaha la taaban karo ee laga soo hooyey waxbarashada gobolka banaadir tan iyo markii adeegaas laga soo daadejiyey dowladda federaalka Soomaaliya waxbarashada runtii dadaal dheer ayaan u galnay in bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir iyo magaalada caasimadda ay helaan waxbarasho bilaash ah maadaama tirakoob la sameeyey lagu ogaaday boqolkiiba 88 inaysan iskuul aadin caruurta gaartay da'da waxbarashada ayaa waxaa halkaas nooga soo baxay inaan sameyno olole oo waxbarasho in la helo goobo waxbarasho oo bilaash ah in la helo dugsiyo mataqaana ayaan hirgelinay waxbarasho oo loo diro arday aan shalay waxbarasho aadaynin oo iska joogay guryaha kuwaas oo loo suurageliyay inay waxbarasho u aadaan iskuuladaas si bilaash ah sidoo kale waxaan sameynay guddoonadii waxbarashada oo gobolka banaadir afartiisa qayb waxaa kaloo dhisnay xarun weyn oo ku taala xamar weyni oo waxbarashada yacni maamulka gobolka banaadir agaasinka waxbarashada gobolka banaadir uu ku howlgalo marka intaas ayaan sameynay waxaan dhisnay iskuulo kale oo yacni cusub oo waaweyn kuwo danguuda hore u dhisnaana waxaan suuro gelinay in ubadka Soomaaliyeed loo diro oo wax lagu baro mudane guddoomiye waxaa jiray madmadow soo kala dhex galay wasaaradda iyo gobolka banaadir arrintaas xagee maraysaa maanta runtii waa jirtay sida aad sheegaysid yacni madmadow soo kala dhex galay agaasiga waxbarashada gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada federaalka ah midowga dugsiyada yacni oo xilliyadii dambe abuurmay ayaga laftoodu walaac badan ayay ka muujiyeen isqabqabsiga iyo muranada soo kala dhex galay agaasiga waxbarashada gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada federaalka marka arrimahaas si xal looga gaaro ayaan xiriiro kala duwan sameynay la fariisanay madaxdii wasaaradda aan la fariisanay dugsiyada hoggaankoodii waxaasoo dhanna alxamdulillaah hadda isfaham iyo isla shaqeyn ayay kusoo dhammaadeeno si wada shaqeyn iyo wanaaga ayaa hadda hawshu ay u socota
adeegyada ay bixiso dowladda hoose xamar sida bixinta shatiyada kala duwan maxaa isbedel oo gudoomiye aad ka samaysay tani markii aad noqotay maayarka caasimadda muqdisho walahi adeegyada wax badan aan ka bedelnay waxaa ka mid ah yani ID-ga gobolka banaadir shaqaalahiisu ay leeyihiin oo aan ka dhignay ID electronic ah oo yani data casri ah oo jib leh oo macluumaadkii qofkaas oo dhan uu ku jiro sidoo kale waxaan sameynay shahaadooyinka yani adeeg ahaan oo uu bixiyo gobolka banaadir ayagana waxaan ka dhignay kuwo yani qalab badan oo electronic ah oo ku jiro gudaha oo la samey karin marka waxaan sameynay oo kale yani database akhrinaya documentigaas ayaan sameynay waxaan sameynay system la shaqeeya shahaadooyinka aan bixino oo lagu akhriyo ayaan sameynay waxaasoo dhan waxaa loola jeedaa in la horumariyo tayada adeegyada bulshada uu bixiyo gobolka banaadir runtii markaa annaga aan imaaneynay waxaa adeegyadaas oo dhan waxaa loo soo raadsan jiray xaruntan hadda aan joogno oo dhexe marka waxaan u daadejinay degmooyinka ayaa hadda adeegyadaas laga qaataa oo looma baahdo inta badan in halkan loo soo raadsado marka adeegan oo dhalashada iyo sugnaanta kaasaan hadda weli daadegiisii wax nooga dhiman yihiin kastoo xafiisyo qaar degmooyinka qaar aan ka sameynay mudane gudoomiye waxaad kala faahfaahin naga siisaa suuqyada magaalada muqdisho wallahi suuqyada magaalada muqdisho horta dhibaatada ugu weyn oo ay wajaheen waxay ahayd gubashada marka dadku inay horta naftooda iyo maalkooda oo gubasho ka badbaado ayaan dadaal u galnay waxaan sameynay wadooyin ayaan ka bixinay suuqyada qaar badan oo ka mid ah wadooyinkaas oo fududeynaya markii uu dab kaco in si deg deg ah gaadiidka dabdamiska ah uu ku gaaro goobta dabku ka kacay marka taas ayaa ka mid ah waxyaabaha hadda ugu khatarsanaa ama ugu darnaa oo u baahnaa in wax laga qabto aan wax ka qabanay sidoo kale waxaan dhisnay suuqyo cusub oo aan hore u jirin oo aan aada u horumarinay yani si aadna mataqaanaa loo qalabeeyey isla markaas kuwa noo dhiman oo aanan weli ka howlgelina way jiraan oo qorshaha mustaqbalka noogu jira inaan wax ka bedelno haddii aan leedmo oo kamid yahay suuqa Siinay oo runtii ka mid ahaa suuqyada waaweynaa ee magaalada muqdisho ay lahaan jirtay marka suuqyada qaar dab qabsaday muddadii aan joognay waxaan ku dadaalnay in ka hortag loo sameeyo ama ha ahaato yani goobo yani biyo la geliyo iyo goobo haamahan kaarboonka oo dabka lagu damiyo leh marka waxyaabahaas ayaa ka mid ah waxyaabaha aan ku horumarinay xagga suuqyada waxaa kaloo faahfaahin naga siisaa gudoomiye adigoo mahadsan suuqa xoolaha ee dayax iyo waxyaabaha aad ka qabatay intii aad joogtay xafiiska suuqa dayax wuxuu ahaa suuq kooban oo mataqaanaa xilligii 2001 meelahaas ayaa suuqahan loo calaamadeeyey laakiinse wax badan lagama qaban maadaama suuq ahaan loo calaamadeeyey oo danguud ah uu ahaa waxaan ka shaqaynay inaan suuqaas ballaarino oo suuq weyn oo mataqaana xoolaha lagu iibiyo aan ka dhigno waxaan u sameynay dhismooyin kala duwan oo casri ah aan ku sameynay suuq ahaanna waa ballaarinay waxaan u kala qaybinay noocyada xoolaha oo dhan ayaan u kala qaybinay oo yani nooc kastoo xoolaha wuxuu leeyahay goob gaar ah oo mataqaana loo iib keeno ayuu leeyahay waxaan u dhammaystirnay biyihii waxaan u dhammaystirnay korontadii iyo dhammaan adeegyadii suuqa u baahnaa oo dhan marka si wanaagsan ayuu hadda u shaqaynayaa yani xoolo badan ayaa la keenaa
baaxadda suuqa oo aan ugu talagalno xoolahaasna inta hadda la keeno waa kasii weyn. waxaa gudoomiye dad badan ku wareersan yahay canshuuraha la qaado iyo waxyaabaha lagu qabto marka waxaan jeclaan lahaa maanta inaan u faahfaahiso shacabka Soomaaliyeed canshuuraha ay qaado dowladda hoose iyo waxyaabaha ay ku qabato. waa faahsan tahay adeegyada danta guud oo aan qabanno oo dhan ayaa lagu qabtaa canshuuraha sidii loogu talagalay horta uma soo xaroodaan oo amni darro ahaato ama nidaamkii canshuuraadka oo aan burburka kadib dib u soo noqon ha ahaato caqabado ku xeeran way jiraan laakiin inta yare hadda anagu aan qabanno runtii waxaan ku qabanaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay yacni adeegyada caafimaadka sida hadda gaadiidkan aan sheegayo ambalaansada oo kale ha ahaato kuwa dabdamisyada ha ahaato gaadiidkan qashinka lagu qaado ha ahaato wadooyinka marka yacni dhammaan goobaha la horumariyey waxaa jira suuqyo la dhisay sida aan kuu sheegay suuqyadaas la dhisay oo kale marka yacni adeegyada aan bixinno oo dhan ayay noo suuro geliyaan yacni dakhliga canshuuruhu. gabagabada gudoomiye maxaad ka qabatay shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta magaalada Muqdisho maadaama maamulka gobolka Banaadir uu leeyahay wax qaabilsan shaqada iyo shaqaalaha. baahada shaqo la'aanta ka jirta guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada marka loo fiiriyo anagu waxa aan qabanay waxa soo baxaysa inaan wax badan la qaban laakiin haddana inta hadda aan qabanay oo shaqo abuur aan u sameynay waa in aad u fara badan maalan adigu ilaahay shaqaalaha hadda gobolka Banaadir waxay ahaayeen adigu 170 anigu aan ugu imid haddana waxay kor u dhaafayeen 3,000 waxaa kaloo jira shaqaalo kale oo mataqaana aan ahayn shaqaale rasmi ah oo shaqooyin loo abuuray oo shaqooyin muddo gaaban qabta ayaa jira oo ayaga laftoodu qayb ka ah shaqo abuurka marka baahida shaqo ee da'yarta Soomaaliyeed runtii ma aha mid aan yani baahi tirnay ama aan dhamaystirnay laakiin dadaal badan aan u galnay waana sii wadaynaa biidnillah.